جزاه الله خيرا شيخ. وسؤاشي تضباط سائل كان يقول لي شيخ حاسكيغا ناسكا هدان كنوغو محي دينتو كقبتا. سؤالي دلي رضا سؤال مسألة كوسابسن نينكو ينو حاسكيسا ناسكا كنوغو أنك لقادنو طبعا waxa loo sameeyo nacfi caana laga marraadsaday waa nooc istimtaaca kamid sooma waa nooc istimtaaca kamid marka hadii uusan wax caana ka nuugin laakiin uu naaska afka geliyo wax caana si uusan ka nuugin markaasi inay bannaan tahay shaki kuma jiro maxaa yeelay axaadiista tilmaamaysa istimtaaca iyo rag iyo dumarka gobasha galmada ka hor waxa dhex mara axaadiistaasi ma aynan diidin cumuumkeedana waxa laga qaadanayaa inuu bannaan yahay wax sharcan diidayana ma jiro waa nooc istimtaaca iyo mubaasharada iska bannaan ka mid suurada waa hadduusan caana ka nuugin suurada labaadi waxa weeyaan inuu caana ka nuugo laakiin uu iska tufo caani markiisa afkiisa galaan iyadana iska tufo iyadana way bannaan tahay wax ishkaalana ma leh suurada saddexaad waxa weeye inuu caana ka nuugo caanihiina liqo sooma ninkaasi caruur ilmihii buu qadiyey marka kaas suurada iyada ah oo markii intuu caananaaska ka nuugo caanihii uu liqo suuradaasina sida raajixa ah way bannaan tahay jamaahiiru ahli cilmi waxay leeyihiin wax ba'siya ma leh sababtu waxay tahay sharcan wax diidayaan jir haddii la yidhaahdo soo ma dhici karto caanahan uu islaanta ka nuugay in ay xurmo keento uu noqdo sidii ilmaheediioo kale uu noqdo jawaabtu waxa weeye maya lianna jamaahiiri ahli cilmi waxay qabaan marka naas caana laga nuugay uu keenayo xurmo uu keenayo shuruud bay leedahay shuruudana axaadiista tilmaantay waa goorma waa inuu ilmuhu yar yahay oo caanuhu jidhkiisa wax tarayaan 2 sano iyo wixii ka yar caanaha uu cabayna lafihiisa kobcinayaan jidhkiisa nafaqaynayaan waa ilmo yar markaasaa wuxuu nuugay ay keenayaan taxriim keenayaan marka labaad shardiga labaad nuugmada uu nuugay waa inay 5 nuugma noqoto sidii xadiidkii Aisha tilmaamay 5 goor intuu nuugo mid walba intuu afka gashado nuugo inuu kala baxo isagoo sidiisa u daayo ilmo hadana ku noqdo sidiisa u daayo hadana 5 goor markuu saa u nuugo ayay xurmadu iimaanaysa sooma tayib ninkan weyn marka ilmo yar ma aha sooma mar hadduusan ilmo yar ahayn caanaha naaska uu ka nuugayo saamayn kuma samaynayaan jamaahiiru ahli cilmi baa sida qaba wax saamaynay ku samaynayaan ma ay jiraan xadiis baa jira Salim mawla Hudayfa oo guri ku noolaa oo gabadhii ajnabina xaafadda ka ahaa xaafadii ku rafaaday kadibna gabadhigu wuxuu ku yiri xadiiska Bukhariga nuuji buu ku yiri si aad ya xaraam u kaga no yani wax sigu محرمكو كنقض حديث كاسي وحي ليهين أما محوها هي حاجة كنتي وحاجة خاصة أما هذا سيبي هو أوليا لكن جماهير العلم أهل العلم وحي قبان المها يركب عانه الصاميان إنك وين ما الصاميان سيدا سنا ومذهب الصحابة رضوان الله عليهم عبد الرزاق في المصنف وحقوق يعني عبد الله المسعود ما ينبى حاسكيسي عانه كو استاجين ماسكي بعانه كو استاجين markaasuu intuu kan nuugay buu tufay si caanaha naaska ku istaagay uga soo saaro ninkii waa shakiyay Abu Musa al-Ash'ari uu tagay war islaantii waan caanihi ka soo saaray wal waran Abu Musa marka wuxuu ugu fatwooday si buu su'aash jawaabta ugu dhigay waa soo tago Abdullah Mas'uud buu yimid markaasuu yiri niyow tan ay ugu dhacday Abu Musa aan u tago sidan uu igu jawaabay ayaba warkii la hayaba Abu Musa yimidba
markaasuu wuxuu ku yidhi war Abu Muusa war ninkan ma ilmo yar baad mooday ya atadunnuhu radiican buu ku yidhi waxaad u malaynaysaa ilmo yar oo naasnuuga markaad leedahay yani wax weeyaan aad leedahay wixii aad nuugtay waa ku saameeya marka saxaabadu ridwaanullaahi calayhim madaahibtooda cumar cabdillaahi ibni cumar dhammaantood aahaartu waa ka sugan tahay marka wax dhiba male waa nooc istimtaaca ka mida jaa'is ah oo ah bannaan wax saamaynayna aan ku samaynin xaaladdaa dambeoo caanaha inaad liqda ah baa culimmada qaarkoodii karaahaysanayaan oo fiican in laga fogaado maadaama khilaafba ku jiraba khuruujan min alkhilaaf in laga fogaado way fiican tahay laakiin ma xarimi karno wallahu aclam